sida filashada ahaydba Apple waxay qabatay dhacdadeedii sanadlaha ahayd oo ay ku soo bandhigi jirtay iPhone cusub iyo saacada cusub. Sanadkan 12 September ay qabatay. Waxay shaacisay iPhone kala duwan iyo saacada kala duwan. Magacaygu waa Maxamed, halkanna waa IM252. Waxaan rabaa muuqaalkan kugu faahfaahiyo 7 waxyaabood oo kala duwan oo ku cusub iPhone-nada sanadkan la shaaciyay maadaama aan inteena badan xiiseynayno qaybta iPhone-ka ayaan toos u abaari doonaa waqtina siin doonaa 7 waxyaabood oo cusub oo ay sanadkan soo kordhisay Apple ayaan faahfaahin idinka siin doonaa. Sidoo kale awoodaha guud ee iPhone-nada la shaaciyay iyagana dusha ayaan ka mari doonaa oo kama tagi doono. Ila soco ilaa inta aan ka gacan hatin doono. baliyo galow inaan ka bilaabo isbedelka ugu weyn. Ma jiro isbedel ka weyn in Apple sanadkan ay ka tanaasushay cable-kan lightning oo ay sanadaha ku dhignayd oo iPhone walba ay soo raacin jirtay. Laakiin sanadkan wixii ka dambeeya Apple waa ay ka tanaasushay cable-kan dadka ay dhinac ka raacday. Taa macnaheedu waxay tahay in ay adeegsan doonto ama iPhone 15 uu adeegsan doono ama uu leeyahay godka loo yaqaano USB Type-C ama USB 3.0 oo kuu suuragelinaya in aad hesho ama aad ku jaajaraysato iPhone-kaaga kaybalada ay ku jaajaraystaan dadka taleefanada Samsung-ka waaweyn isticmaala iyo shirkadaha kale ee taleefanada iyagana soo saara sidoo kale kombiyuutarada Apple-ka ah iyo kombiyuutarada caadiga ah ee dhawaanahan inta badan la soo saaray iyaguna Type-C ay isticmaalaan. Type-C-gu waa midka ugu caansan ee maanta dunida la adeegsado. Haddii marka ay Apple ku soo biirtay waa isbedel weyn dabcan. Ka aniga ahaan waxaan u arkaa inuu yahay isbedelka ugu weyn ee soo kordhisay. Taa macnaheedu waxay tahay sidoo kale in iPhone 15 iyo wixii ka dambeeya ay heli doonaan fast charge ama dab qaadasho degdeg ah. Sababtoo ah USB Type-C-gu waa uu ka bixin wanaagsan yahay kaybaladan tacbaanka ay Apple sanadaha ku dhaganayd. Tusaale ahaan 50% waxa uu ku geyn karaa 30 daqiiqo oo kaliya iPhone 15-ka. Marka waa isbedel weyn waana isbedelka ugu weyn sidaan aaminsanahay aniga. Isbedelka labaad iPhone-nadu laba ay u kala baxaan. Kuwa sida u dooxan iyo kuwa siman sida iPhone 13 iyo 14-ka oo kale. Laakiin iPhone 15-kan sidana uma dooxnaan doono mana wada sinaan doono. Wax yar oo dooxnaana ayaa ku jiri doona. Taa macnaheedu waxay tahay in naqshad ahaan isbedel yar uu xagga hareeraha iyo xagga muuqaal ahaanba uu kaga duwanaan doono iPhone 15-ka kuwii isaga ka horeeyay oo inta badan isku ekaa. Qodobka saddexaad oo ah mid ka mid ah isbedelada ugu waaweyn ee sanadkan la soo kordhiyay taleefanada la shaaciyay dabcan horta waa 4. iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro iyo 15 Pro Max. 15 iyo 15 Plus way isla socdaan, 15 Pro iyo Pro Max-na way isla socdaan, iyaga ayaana features ama awoodo badan. Marka labada 15 Pro iyo 15 Pro Max waxaa laga saaray batankii inta badan codka laga xiri jiray ama laga furi jiray ee dhinaca bidix inta badan iPhone-nada kaga ooli jiray. Waxay ku bedeleen waxa loo yaqaano action button oo qofka uu riixi karo waxyaabo badanna uu adeegsan karo. Haddii uu doono sidii hore oo kale silent iyo ring mode ayuu u kala bedelan karaa. Sidoo kale kaamirada ayuu ka furan karaa waxyaabo kala duwanna waa u saaran karaa. Hadba waxa uu saarto ayuu batanka markaa ku shaqeynayaa. Batankana waa uu ku cusub yahay sanadkan iPhone 15-nada. Isbedelka afraad Apple hareeraha ama dhinacyada waxay u isticmaali jirtay taleefanadeeda waxa loo yaqaano stainless steel oo ah bir aan taxalaysanin inta qurxiso midabayso ay u adeegsan jirtay. Bir caadi oo culus ayuu ahaan jiray dabcan. Laakiin sanadkan waxay adeegsatay bir loo yaqaano titanium oo ah bir adag isla markaana cuf ahaan markii la fiiriyo qafiif ah. Marka titanium-ka shirkado kala duwan ayaa horey u isticmaalay sida Samsung oo kale taleefanadeedii dambe ee waaweynaa way u adeegsan jirtay qaarkood. Marka Apple iyaduna waa ay ku soo biirtay isbedelkana waa isbedel kale birta waxay keenaysaa in culayska telefoonka uu qafiifo adkeysigiisana uu siyaado. Tusaale ahaan iPhone 14 Pro Max-ga oo kale 240 gram ayuu ku culays yahay. Halka iPhone 15 Pro Max-ga hadeer uu ku culays yahay 221 gram. Waa dareemi kartaa xagga culayska isbedel ayaa jira. Isbedelka shanaad
inkastoo dhanka kaamirada isbedelo waaweyn aysan jirin laakiin haddana software ahaan ayay isbedelo u jiraan. markii hore waxay ahaan jirtay in portrait iyo photo caadi ah aad kala qaado, laakiin iPhone 15 iyo wixii ka dambeeya sida la filayo waxay noqon doontaa ama waxaa laga dhigay haddii aad sawir caadi qaado hadhow markaad edit garaynayso waxaad ka dhigi kartaa portrait. haddii aad laba qof tihiin oo kale qof ka mid ayaad dooran kartaa si uu u soo muuqdo qofna uu humaaga u koro. isbedelka lixaad, markaad kaamirada wax ku sawirayso dabcan iPhone-ka waxaad kala dooran jirtay zoom-ka 1x 2x ama 3x ayaad kala dooran jirtay sax. laakiin iPhone 15 Pro Max-ga kaligiisa waxaa lagu soo kordhiyay 5x zoom. isbedelka toddobaad, iPhone-adu dadka inta badan wax duuba ee professionalka ah marar qaar si dhaba ayay u isticmaalaan in wax ugu duubaan. sidaa darteed waxaa lagu soo kordhiyay sanadkan maadaama USB Type C uu yimid meesha in qalab external drive ah oo storage ah sida hard disk aad banaanka intaad uga xirato oo kale aad toos iPhone-ka ku xiran karto. iPhone-ka marka 4K oo kale wax ku duubayo cabir weyn ayuu video-ga ka dhigayaa. cabirka weyn inuusan telefoonka ka buuxinin oo uu toos ugu kaydiyo tusaale ahaan external hard disk sidaana ama external SSD sidaana aad waxaad doonto aad ugu duubato. maadaama aan kuu faahfaahiyey toddobada isbedel ee haddeer iPhone 15 kusoo kordhisay Apple, waxaan rabaa inaan dul maro bal waxyaabaha kale ama awoodaha kale ee iPhone 15 ay leeyihiin. afartooda iPhone-ba ama afartooda iPhone 15-ba waxay ka wada siman yihiin IP68 inay u dulqaadan karaan boorka iyo biyaha ilaa iyo 6 mitir 30 daqiiqo oo waqti ah. storage-ka ugu yar iPhone 15-adu waxa uu noqon doonaa 128GB ilaa iyo midka ugu sareeya 15 Pro Max-ga waxa uu gaari karaa ilaa iyo 1 terabyte oo storage ah ama 1024GB oo kayd ah ayuu gaari karaa. xagga marka qiimaha way isbedelayaa, waxa uu qiimahu ka bilaaban doonaa sida la filayo $800 ilaa iyo $1600 ayuuna gaari doonaa. xagga kaamirooyinka markii la fiiriyo 48 megapixel ayaa ugu badnaan doona, xagga kaamirada horena ay wada noqon doonaan 12 megapixel sida la filayo. intaa waa waxyaabihii aan rabay inaan kaaga sheego iPhone 15-da afartooda nooc kala duwan. haddii aad hayso qodob aan ka tagay fadlan qaybta hoose ee faalooyinka inoogu sheeg. sidoo kale sidaad u aragtaa isbedeladan ay Apple soo kordhisay sanadkan ee aan muuqaalka kugu sheegay? faalladaada qaybta hoose ee faalooyinka aan ka aragno. aniga ugu dambeynta kaaga mahadcelina waqtiga qiimiga badan ku bixisay daawashada muuqaalkan. inta laga gaariyo muuqaalka xigay baidankii nabadgelyo. intaana ka bixinse haddii aadan ka mid ahayn asxaabta M252 maxaad ka qabtaa inaad nagu soo biirto? boqolaal kun oo qof ayaa kusoo dhaweyn lahayd. dabcan roog casaan ayaa lagu fidin lahaa, aniga ayaan marka ugu horey kusoo dhaweyn lahaa. nagu soo biir maanta si aad muuqaalo midkan oo kale oo faa'iido leh halkan uga hesho. nagu soo biir. inta aan ku gacan haatinin waxaan rabaa inaan muuqaalkan uga mahadceliyo shirkadda Haleel Commodities oo ah wakiilka saxda ee shirkadda Samsung ku leedahay Soomaaliya. shirkadda Haleel waxaad ka helaysaa dhammaan waxyaabaha ay Samsung soo saarto oo si rasmi ay ayada wakiil uga tahay damaanadna ay ku siinayso. xarunteeda ugu weyn waxay ku taalaa isgoyska Taleex ee magaalada Muqdisho.